بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، وقيبتي لباد محاضرتي أنا مقعدرني أما السلسلة أنا مقعدرني أفكار أما فكرة الشيء وكسو دولي إسلامك إياه دادكيس. قيبتي هوري وككوبنيد لوا حلقو أما لوا درسي وحينكو قادني استشراقة يوم مستشرقين وحينو سوعديني إنay yihiin niman gaala ah oo reer galbeed ah oo inta badan kaniisadaha ka socday oo diinta bartay islaamka iyo masaadirteeda si ay aqoonta ay diinta u yeesheen ugu isticmaalaan duminta diinta islaamka iyo durideeda iyo wax ka sheegeen. qaybtii labaad ayaan caawa u fadhinaa oo silsilada qaybteedii labaad waxayna ku saabsan tahay al-calmaaniya, fikirka la yiraahdo al-fikr al-calmaani ama al-madhhab al-calmaani ama at-tayar al-calmaani ayuu ku saabsan yahay. sida qorshuhu yahay insha Allah taala qaybta saddexaad iyadana waxaan kaga hadli doonaa ilaahay inoo qadaro nimanka la yiraahdo al-aqlaaniya al-qadiima wal-hadiitha saan horeba u sheegay. calmaaniyadu marka saan rajaynayo laba darsi caawa iyo habeen dambe ayaynu insha Allah taala ku soo khulaasaynayna fikirka iyo wuxuu yahay iyo xagee uu ka soo bilowday. al-calmaaniya xagga luqadda waxa la yiraahdaa lafdu al-calmaaniya horta sidiisaba macaajimtii luqada ee hore laga heli maayo, yani macaajim al-lugha al-arabiyya al-qadiima calmaaniya laga heli maayo, laakiin waxay ku soo aroortay qawaamiista ama macaajimta casriga qaar ka mida sida مثلا المعجم العربي الحديث wuxuu ku sheegay calmaani waxa la dhaabuu yiri ma laysa kanasiyan wala diiniyan, waxaan kaniisadna ku abtirsanin diinna aan ku abtirsan, saas ku qeex. mucjam al-wasiitka oo isagana mucjam mucaasira ah qaamuus waqti dhow la qoray ah wuxuu leeyahay al-calmaaniyu nisbatun ila al-calmi bimacna al-caalam wa huwa khilaafu ad-diiniyi aw al-kahanuutiyi. waxaa la yidhaahdaa buu yidhi dadka diin ku abtirsada wixii aan ahayn, bimacnaa wixii aan diin ku abtirsanin baa la yidhaahdaa calmaani la dhaha. xagga istilaaxa markaan u nimaadno iyo maxaa calmaaniyada laga wadaa, waxaa horta marka koobaad sixid u baahan kelimadu cilmaani mehe waa calmaani. in caynka la hoos dhigo waa khalad oo la yidhaahdo cilmaani sax maaha, لأن علماني markaad tiraahdo waxay noqonaysaa kelimada in cilmi laga soo qaatay, sidaana ma kelimadu waa calmaani oo min al-calmi baa laga soo qaatay, saas daraadeed caynka in la kordhigo ayaa laga maarmaan. kelimada calmaaniyadu tarjamadeeda saxdii waxa weeye al-diiniya aw ad-dunyawiyya waa diin la'aan ama ruuxu inuu adduunyo kaliya rumaysan yahay
oo uusan rumaysnayn wax la yidhaahdo diin iyo aakhira toona calmaanigaasaa la dhaha wuxuu rumaysan yahay keliya wixii uun adduunyada ku saabsan waxay la mid tahay ingiriiska marka la yidhahdo kelimada ingiriiska waxaa la yidhahdaa secularism baa la yidhahdaa secularism kelimadaasaa ka turjumaysa oo secular laga keenay bimacnaa maadiyada waay ama adduunyada laga keenay macnaha ama cilmi markay noqoto kelimada cilmigu waa science waay kelimada cilmigu waa science maaha ee waa secular waay secular waa wixii aan diin ahayn saas daraaddeed calmaaniyada waxaa la yidhahdaa secularism baa la yidhahdaa ee ma aha science maaha saasay marka u kala tegaysaa kelimadu cilmi kama imaanina waxay ka timid diin la'aan bay ka timid dadkaan diinta lahayn baa calmaaniye la yidhahdaa waxaa marka lagu magacaabo bay dhaheen calmaaniyada waxay yidhahdaan waa dacwatun ilaa iqaamati alxayaati cala alcilmi alwadciyi waalcaqli wa muraacaati almaslaxati baciidan can addiin calmaaniyada waxaa la yidhahdaa waa dacwo dadka ugu yeedhaysa nolosha in lagu saleeyo cilmiga bini aadamku dejiyey caqliga bini aadamka in lagu saleeyo maslaxada wuxuu isagu maslaxo u arko in nolosha lagu saleeyo taas oo macnaheedu uu yahay in laga fogeeyo wixii diin ku saabsan wax diinoo dhan in laga fogeeyo nolosha laga fogeeyo wax bini aadamku dejistay wixii isaga caqligiisa ka soo fulay iyo wixii maslaxaan isagu u arko in nolosha lagu saleeyo diintana laga fogeeyo taasaa waxaa la yidhaahdaa alcalmaaniyada taasaa la yidhahdaa sidaasi almawsuuca almuyasara baasaa u qeexaysa qeexitaanka kutubta wax ka qortayna saasay isugu dhow yihiin maalan daa'irat almacaarif albritaaniya baa iyaduna sidaa ku qeexayso waxay leedahay xarakatun ijtimaaciya tahdifu ilaa sarfi annaasi can alihtimaami biاlaakhira ila alihtimaami bilxayaati addunya waxdaha waxaa la yidhaahdaa waa dhaqdhaqaaq bulsho oo ijtimaaci ah oo ujeeddadiisu ay tahay dadka in laga leexiyo inay aakharo ay ihtimaam siiyaan aakharo inay mudnaan siiyaan ama aakharo wax la rumeeyaan ama u shaqaystaan daa in dadka laga leexiyo maxaa loo leexinayaa ila alihtimaami bilxayaati addunya waxdaha noloshan adduunka keliya inay u qastaan oy ka fikiraan oy u shaqaystaan dadka in dhankaa uun loo leexiyo aakhara iyo wixii ku saabsan oo dhanna laga leexiyo xarakada iyo dhaqdhaqaaqa noocaase waxaa ka shaqeeya mabda'a rumaysan ayaa calmaaniye la yidhaahdaa sidaasay ku qeexaysaa daa'iratu almacaarif albritaaniya macnaheedu waxa weeyaan diinta iyo dowladda ha la kala fogeeyo diinta iyo nolosha caamkee dadkana ha la kala fogeeyo diintu waa inay noqoto wax ruuxa uun qalbigiisa ugu jira oo aan dhaafaynin isagiiyo wuxuu caabudaya hadduu dhagax caabudayo isagiiyo waxa uu caabudayo hadduu kaniisad ku jiro isagiiyo wuxuu rumaysan yahay halaysu daayo hadduu alla caabudayo isagiiyo ilaah halaysu daayo waxaa qalbigiisa ku jira haddii qalbigiisa ay ka soo baxdana waa inay markaa uu noqoto uun keliya ashacaa'iru tacabudiya xoogaa uun uu muujisto oo ku cibaadaysto oo duquus oo intaa wayayna dhaafi iyo waxoogaa markay sii yara gudubto guur iyo furitaan iyo inahaas meelaha ayayna ka gudbin laakiin nolosha inteedii kale yayna faraha la gelin diintu oo dhaqaalihii leh arrimihii bulshada leh siyaasaddii leh xugumkii leh calaaqaadkii leh tacliintii waxbarashadii leh howlaha caamka ah yayna diintu faraha gashanin adeer adiga iyo masaajidkaaga adiga kaniisadaada iyo adiga iyo sacad caabudayso adiga dhagaxaad caabudayso howlkuu taalla waaye lagugu faragelin maayo laakiin noloshaa soo faragashan barnaamijku asal ahaan calmaaniyadu qeexitaankeedu sidaa iyadaa waxaa jira marka faham khaldan oo kelimada marka ugu horraysaba laga urinayo ama laga dhadhaminayo oo ah in ay isdiidan yihiin oo dagaal ka dhaxeeyo oo ayna is-aqbali karin alcilmu waaddiin cilmiga iyo diintu inaysan meel wada geli karin
oo siraac iyo looltan iyo dagaal ka dhaxeeyo bay marka horeba yay kelimadu ku salaysantay waana faham aan sax ahayn cilmiga iyo diintu hadday saxsan tahay cilmiga iyo diintu waa isku meel ma kala baxaan laakiin ayagu wax siraactamayo islaynayay ka dhigeen su'aal baa la isweydiin karaa oo la dhihi karaa kelimada calmaaniyadu hadday macnaheedu ay diin la'aan tahay maxaa loo dhihi waayey bedelkii calmaaniye la yidhi laa diiniye maxaa loo dhihi waayey allaa diiniya ilan tanaa si fiican loo wada fahmi lahaa soo maa ha diin la'aan maxaa loo dhihi waayey waxay leeyihiin kelimada waxaa loo doortay liannaha aqallu ihaaratan min kalimati laa diiniya xagga dadka diimaha haysta dareenkooda kicinta dareenkooda ayay kelimada laa diiniyadu iyo culayskay ku keenaysaa oo haddii lagu yidhaahdo laa diini baa tahay oo diin haysato iyo haddii lagu yidhahdo calmaani baa tahay labada kelimo waxoogaa soo waqcigoodu ma kala gedisan ikhtiyaarka marka kelimada la doortay waxoogaa dareenka marka horeba yayna ku dhicinoo dareenka dadku yayna inaga boodin ee kelimo waxoogaa yaro maldahan oo cilmi inay ka turjumaysa la yaro moodayo dadku u qaadan karo qaabkaasaa kelimada marka horeba loo doorto calmaani loo yidhi een laa diini loo dhihi laakiin xaqiiqatu alcalmaaniya hiya allaadiiniya waalilxaad waa diin la'aan wa diintu waxay dooniba ha noqoto diin la'aantaa waxaa la yidhaahdaa calmaaniyada la yidhahda ayib intaasi waa qeexitaankeeda qodobka xiga waxa weeye calmaaniyadu xaggee ka bilaabatay goormeese ay bilaabatay fikirkani goormuu bilowday xaggeese ka bilowday ragga wax ka qoray qaar ka mida waxay leeyihiin in diinta iyo nolosha la kala saaro oo diintana meelaha cibaadada lagu koobo noloshaa kale dadkana diinta laga fogeeyo fikirkaasi asalkiisu wuxuuba dib ugu noqonayaa diinta nasaarada oo waxay soo guurinayaan nas ay leeyihiin kutubta anaajiisha qaar ka miduu ku yaallaa oo ay u tiirinayaan nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxay leeyihiin hadalladiisii waxaa ka mid ahaa acطi maa liqaysara liqaysar wamaa lilaahi lilaah wixii qaysar leeyahayna sii wixii alla leeyahayna alla sii qaysarku waa qayaasiradu waa madaxdoodii waay madaxdii siyaasadda ee dowladaha hogaaminayay ayaa qayaasiro la yidhaahdaa marka alla wuxuu leeyahay oo kaniisadda iyo inaha ka agdhow ana duquusta iyo waxoogaagana allaa lehe alla sii dowladdii iyo noloshii maamulkeediina qaysar baa iska leh qaysar u dah oo raggaas hoggaanka ahee maamulaya siyaasiyiinta ah baa waxay doonaan u dejisanaya naskaasaa waxay ka soo guuriyaan oy leeyihiin nebi ciisaa yidhi calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam laakiin waxaan isleeyahay warkaasi war nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo injiiltii saxda ahayd ka suuroobi kara maaha leanna injiil axkaamta ku taallay oo qur-aanku sheegay baabaa badanba axkaam inay axkaam lahayd ooy nolosha jidaynaysay oo ay xuduud lahayd ooy nolosha caamka ay ka lahayd tasawur ka lahayd ooy axkaam ka lahayd qur-aankaa qaybo ka mida sheegay sidaas daraaddeed injiil baa iyay ku soo degtoo nebi ciisa lagu soo dejiyey siyaasiyiintiiyo madaxdana ha loo daayo nolosha inteeda kale kiniisaddana wadaadada ha loo daayo iyo ciddii gelaysa warkaasi war saxsan inuu yahay ilama aha maxaa yeelay dabeecadii tawreed iyo injiil waa khilaafsantahay ma suuroobi kartoba iska dhaaf diinteenna islaamka maxaa yeelay addoonka xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo qalbigiisa iyo xubnihiisa iyo noloshiisao dhan ilaahay baa iska leh diinteenna waa saas sooma qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ساسوح صلاة ديدا قورع عيقا نلشيدا قيري ديدا إلهي با إسكاله اللي يؤون كانوا رمض الهابا إسكاله لا شريك له وليبا لما وداقه
sooma noloshaada yaa iska leh allah tabaaraka wa tacaala allihii jidhkan abuuray baa amarkiisa iyo taladiisana iska leh saas daraaddeed qur-aanka maxaa ku yimid alaa lahu alkhalqu waalamr abuurka isagaa iska leh alle amarkana isagaa iska leh amarka maxaa laga wadaa alamru alkawni waalamru alsharci amarka kowkan lagu maamulo ee wax lagu dilo wax lagu nooleeyo wax lagu abuuro ee kun ah allah iska leh isagaa kownkan maamulo u taliya loolama taliyo amarka sharciga ah oo inuu addoommadiisa wuxuu raalli ka yahay u jideeyo wuxuusan raalli ka ahayna u diido taana isagaa iska leh marka labada qadiyood waa isku xidhan yihiin abuurka khalqigan ciddii abuuratay baa shuruuc u dejisanaysa adeer adiga haddaad rabto inaad shuruuc dejisato dee abuuro waxaad abuuran karto intaad shimbiro meeshaa ku samaysato haddaad samayn karto ama aad muxuu ahaayey aad cayayaan samaysato u tali ma samayn kartaa ma samayn kartid saas daraaddeed ciddii khalqigan samaysatay baa taladiisa leh u daa diinteenna marka ruuxdeedu waa tahay laakiin wax la kala saaroo la yidhaahdo muxuu ahaayey war intanna madaxdii siyaasiyiinta ha loo daayay intanna wadaadada iyo masaajidda way ka hor jeedaa wax macquula maba aha wax ilaahay uu soo dejinna maaha laa kutub horaan lagu soo dejinna walaa kuwa dambe laguma soo dejin marka qolya halkaasay u celinayaan laakiin warkaasi ma saxsan haddaba taariikhday bilaabatay iyo asbaabtay calmaaniyadu ku bilaabatay marka la yidhahdo iyo xaggay ku hana qaaday xaggay ku guursatay xaggay ku dhashay xaggay ku xididaysatay xaggay ku adkaatay waa su'aal isweydiin leh ila wixii taariikhiyan baan u dabagelayn nacam sheekh صح آيات كان ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون يا الله الله يا مركور أصلها يكسو ديس صوما أهل الإنجيل واحد وتورادي إنجيل واحد تذكي يكسو ديك آيات كسر حق ورحت يلا كسوها لي ساسي معنا طيب مركا ماشا أي علمانية أي كرطلتي ورجال بيتك meeshay ku hanaqaaday ku kortayna waa reer galbeedka meeshay ku qaangaadhayna waa reer galbeedka meeshay ku duqowdayna waa reer galbeedka innaga mar dambe inugu soo fiday laakiin say ku dhalatay waay laba qaybood baynu ka hadli doonaayo markay waddamada reer galbeedka ka bilaabatay calmaaniyadu say ku bilaabatay mar kalena waxaan u imaan doonaa caalamul islaami inay u soo gudubto maxaa keenay waa qodob inoo dambayn doona waay laakiin waxaan hadda ka hadlaynaa markeedii horeba meeshay ka dhalatay oo waddamada reer galbeedka ahaa inay dhalato maxaa keenay waxaan leedahay marka arrimaha soo socdaa keenay kow waxaan leenahay qodobka koowaad tughyaanu rijaali alkaniisa wadaadadii kaniisadda ee diinta matalayay yaa xadgudub sameeyey way qooqeen siyaabo kala gedisan bay u xadgudbeen waa qodob koobaad taa markaan sii faahfaahino macnuhu waxa weeye yurub qarniyadii dhexe waxay noolayd fatra aad u adag oo waxaa gacanta ku hayay noloshoodoo dhan wadaadada kaniisadda ayaguna niman waxay ahaayeen asal ahaanba tawreed iyo injiil iyo sida qur-aankuba uga hadlay si يعني dadka waxay ku tarbiyeeyeen khaasatan wadaadada kaniisadda inay adduunka ka go'aan inay adduunyada iska fududeeyaan oo zuhdiga baa lagu tarbiyay iyaguna waa ku sii dardareeno inay adduunyada dhan ka dhex baxaan oo duurka galaan oo intay meelay ku cibaadaystaan baadiyaha ka dhistaan sawmacad ay iska go'aan oo guursanin oo muxuu ahay waruhbaaniyatan ibtadacuha ayaga jeebkooda kala yimid qaab noocaas ah laakiin gadaal dambe wadaadadii way isbedeleen kaniisada oo burjuwaasiyiin bay noqdeen niman waxay noqdeen dadkii iyo ummaddii oo dhan gacanta ku haya una isticmaala ayaga inay suldadaa diineeda gacanta ay ku hayaan inay masaalixdooda iyo danahooda iyo hawadooda ku xaqiijistaan ayagoo markaa isa siinaya taxta qinaaca alqadaasa yani waxa weeyaan ilaah baan matalaa waay dhulka annagaa ilaahay u joogna
sidaas daraaddeed dadku waa inay annaga naga dambeeyaan cid kasta oo iyaga afkaartooda ka hor timaadana waxay bilaabeen inay cadaadis iyo pressure iyo ku sameeyaan bal inay ilaahay baa lacnaday yidhaahdaan oo ay ka eriyaan kaniisadda iyo diinta haymanadaasi markaa wadaadadii kaniisaddu ay ku hayeen yurub iyo mujtamacaadkeeda quruntii dhexe dhinacyaha dhammaanteed bay saamaysay dhanka diineed dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda dhanka cilmiga intaba wadaadada kaniisadda looga dambeeyey wax yar haddaynu marka gudagalno sidee bay dadka dhanka diinta ay awood ugu isticmaaleen sidee bay dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda iyo dhanka cilmiga aynu wax yar dul istaagno kaniisaddu waqti hore bay dhanka diinta marka la yidhaahdo waqti hore bay kaniisaddu waxay ka leexatay caqiidadii saxda ahayd ee tawreed iyo injiil ku soo degtay caqiidadii injiil ku timid waxay ahayd inuu nebi ciise yahay in cidda la caabudo ee cibaadada xaq u leh uu alla keligiiya nebi ciisena uu yahay cabdullaahi wa rasuuluh addoon ilaahay iyo rasuulkiisii waaba kelimadii ugu horraysayba hooyadii oo wadata markay dadkii ula timid muxuu ahaa yahuuddii ula timid oy kula soo baxday oo ay ku yidhaahdeen muxuu ahay dadkaad ka dhalatayna dad fiican bay ahaan jireen aabbaha iyo zina laguma aqoonna maxay daabacad wadato waa kii hadlay soo maa waa kii yidhi muxuu yidhi qaala innii cabdullah addoonkii ilaahay baan ahay awalu kelima oo nebi ciise ku hadlay wey calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam addoon ilaahay baan inuu addoon ilaahay ahaa marka saasaa anaajiisha ku taallay xilli dambe ayaa marka caqiidadaa la kharribay oo waxaa loo beddelay caqiidada caanka la yidhaahdo alaqaaniim alhalaaa alla inuu saddex ka kooban yahay alab waalibnu waruuxu alqudus waa mucaadalada xataa xisaabiyan xisaab ahaana xataa laysu keeni kari waayo adugu bal saddex haddana hal isla ah xisaabta miyay ku jirtaa hal lagu daray oo haddana hal kale lagu daray oo haddana hal kale lagu daray meeqa waa saddex soo maa saddexdiiba haddana waxay ku leeyihin hal bay isla yihiin waana saddex waana hal waa la sixi kari waayo xataa caqliyan bay dadkii gelin kari waayeen ilaa haddaan la fahmi karin caqiida noocaasoo alle waana saddex waana hal ah bay mujtamacii damcayn inay ka dhaadhiciyaan war liqa war ma liqi karno war duuduub ku liqa qasab haddaad liqi weydaan malcuuniin baa tihin ilaahayna waa idin cadhoonaya waa la iska qaatay dema war kalea jira wax kale lama haye waa la iska liqay shoroobada qadhaadh duuduub ku liq warka joojiye intaa keliya mayna ku gaabsanine caqiidadaasi saddexda ilaah sheegaysa cid kastoo khilaaftayna dhiiggiisay banneeyeen oo ilaa wakhti dambe waxaa soo gaadhay dad ahlu tawxiid ah oo rumaysnaa inuu nebi ciise addoon ilaah yahay ilaahay hadda dawaa'if la cadaadiyaa jiroo noocaa rumaysan oo uusan wiil ilaahayna ahayn qayb ilaahay ka midana ahayn ilaahna ahayn xataa kutubta anaajiisha qaar ka mida weli waxay qeexayaan inuu ciise addoon ilaahay yahay ciddii waxaa rumaysnayd iyo kutubtii ku taallay oo dhanna way gubeen ciddii waxaa qabtayna way laayeen dhiiggiisay banneeyeen kaniisaddii markay sidaa ku kacday waxaa la leeyahay taariikhda marka dib loo raaco caqiidadii injiili la timid oo hal ilaaha la caabudo ciisena waa addoon ilaahay waxaa beddeloo taxriifiyey baa la yidhahdaa nin la dhihi jiray yani boolis ama shaawuul la yidhaahdo oo yahuudi ahaa ninkaasaa ahaabaa le ninkii ugu horreeyey oo ihaareeyey ciise inuu yahay wiilkii ilaah ama inuu alla yahay waxaa la yidhahdaa waa ninka fasaadiyey diinta nasaarada ama diintii nebi ciise la yimid ninka fasaadiyey shaawuul buu ahaa booliis baa la yidhahdaa yahuudi buu asalkiisa marka caqiidada noocaaseen la liqi karin bay kaniisaddii dadkii ku qasabtay kow ta labaad waxay dadkii ku qasabtay cibaadaad ayadu ay dejisay oo mubtadaca ah oo
ay yidhaahdeen cibaado kasta waxay leedahay macne qarsoon oon la fahmi karin asraar muqaddasay leedahay durbaan garaaca sidan sameeyo duquuska sacabiya forforiya laakiin forforidan iyo sacabkan aad garaacaysaan iyo muusigan la tumayo asraar buu leeyahay macaani qarsoon buu leeyahay war wadaadoo hadda bal macaanidan qarsoon noo sheega ma sheegi karaan waa waxun dadka lagu haysta war noo fasira ma la fasiri karo ya waxay wadaadadana dhihi jireen marka la yiraahdo waxa sheegaysaan bal macnihiisa noo sheega ha waa bahar awliyaad ma dhihi jir waa bahar buxuura waa bahar awliyaad lama geli karo ya adarsa kulliq duduubka kulliq duquustan marka ay sameeyaan wax noocaasay dadkii cibaado uga dhigeen waa la qaadan ilaa qodob labaad weeye xagga ahkaamta tashriiciga ahkaamta nolosha dadka ku saabsanna kaniisadii waxay ku qasabtay awaamir iyo go'aamo ka soo baxay kanasi ah oo baabuhu uu soo saaray baabal kaniisa oo odayga kaniisada u weyn awaamir uu soo saaray baa dadkii looga dhigay shariico looga dhigay annaga maxaa shariico noo ah ya ma wax wada dejiyay baa shariico noo ah maya qur'aan ilaahi ka yimid iyo sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam sooma ayaga waxay ahkaamta uga dhigayaan dadka baabawaadkii odayaashii kaniisada u kala dambeeyay mid walba wuxuu soo saaray qaraar amar buu soo saaray ama go'aan buu soo saaray go'aankiiba ahkaam laga dhigay marka ma weydiin kartid marka wuxuu doonuu xalaalayn wuxuu doonuu xaraamayn war kitaabka ka keen ma dhigi kartid war ma nabi ciise ka tagay ma dhigi kartid aamus هذا القاضي ويدين ومد القرآن الكريم كنت الماميو ولددا كنيسته إني مجتمع وحي دونان أحلاليين وحي دوران يو كحرمين ويشيف كودا وحي إلهي لها قشدين الله القرآن كل شيء سؤال الله مدين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله علماء يا ولادودي الصوفية bay waxay ka dhigteen rabbiyaal alla ka soko ay caabudaan Adi ibn Hatim waa kii nabiga weydiiyay wuxuu rasuulillah maana caabudi jirin markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo waxay idin xalaaleeyaan meedan ku raaci jir ha waxay idin ka xarimaana soo meedan ku raaci jirin ha de cibaadadu wata marba haday iyagu jeebka idin ku hayaan xalaaleyntii xaraamayntii idinkuna ku raacdeen waad caabudeen nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waa mabda'a quraanku ka warramayo tawra injiil waxay sheegtay ha lagu dhaqmo ayaa la isku ogaa arintii waxay noqotay wax wadaadka kaniisada jeebka ugu jiro isagu wuxuu doonaba ka sameeyay kana xalaal kana xaraam taana waxay noqotay arin dhib badan ninkii su'aal ka keena ama diidana ama daliil weydiiyana waa malcuun masiirkiisuna waxa weeyaan waa kaafir muhartiqa waa mukhalif lil kaniisa waxyaalaha noocaas oo kale mesela waxa kamid ah mubtadaci la yimaadeen hadaan tusaalayaal mesela soo qaado waxa wadnaa wali kaniisadu xadgudubkii diineed ay dadka ku sameysay ee keentay kacdoonka calmaaniyada maxaa xadgudub diineed la timid kaniisadu oo sabab u noqday in diintii la naco laga carro lala dagaalamo koow aqeeda khariban oo la qaadan karin bay ku qasbeen laba xalaaleyn iyo xaraamayn wadaadadii kaniisada qaatay صدح عبادات أن لبا يعني لقادن كريني بيودجيين waxa kamida mesela waxyaalaha wathaniyaadkii hore ay ka keeneen layaam kale waxa loo yaqaan ta'miidka waxa la yiraahdaa in ruuxa wajiga biyo lagaga sayro ama jirkiisa qayb kamida biyaha la dhaxgaliyo ama isagoo dhanba biyo lama khuuriyo ta'miid baa la yiraahdaa arinta iyada adigu intaad iska tagto biyo iskama mukhuuran kartid ruux kale caadi intuu ku kaalmeeyana biyo kuma mukhuurin karo waa inaad wadaadka kaniisada u tago isagu biyo ku dhaxgaliyo waa hadii la waayo wadaadka kaniisadana marka waxay u yaqaanaan ta'miidu daruuray dhahan marka daruura wacatay kaad hesho biyaha ku dhaxgaliyo wadaruura tutbiix almahdhurat sama wadaadkii la waa wadaadkii dil waa waxa la sameeyna marka ruux kale laakiin intii wadaadka kaniisada la heli karo waa inuu isaga biyaha ku dhaxgaliyo
isagay u xanibanta waxa kamida mesela waxay u yaqaanaan al-ashaa ar-rabbani ashada rabbi loo tiiriyay war maxay ahayd tanna ashada rabbi loo tiiriyay maxay tahay waxay yiraahdaan nabi ciise alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam ay rumaysan yihiin dilkiisii markii intaan la dilin wuxuu la casheeyay ardadiisii cashadii ugu dambeysay ardadiisa uu la casheeyo bay ahayd bay leeyahay marka waxay ka koobnayd bay dhaheen kibis ama rooti iyo khamro ee ka koobantaa cashada rabbaaniga kimistu marka waxay matalaysaa shirki nabi ciise khamraduna waxay matalaysaa oo ay astaan uga dhigayaan dhiigii nabi ciise waxay markaad cashada rabbaaniga ka qayb gasho wadaad ku hayo oo aad kibista iyo khamrada isla qaadato markaasi waxa xaqiiqo noqonaya shirki nabi ciise iyo dhiigiisii baa marka dhexdaada ku xaqiiqoobahay marka waxaad gaadhay darajo khatar ah maadaama ciise ku dhex galay oo dhiigiisii iyo hilibkiisiiba aad yeelatay soo meel khatar maada gaadhay de kaale cashada ka qayb gal way marka al-ashaa ar-rabbani bay dhahaan waa wax noocaas iyadana khuraafaha waxa kamida mesela waxay u yaqaanaan taqdiisu saliib macatabkan oo yaani wax weeyaan isagana la weyneeyo qaarkood waxay macatabku waa ka horeeyay nabi ciise sida iyagu qabaan waa la dilay bay qabaan laakiin quraanku waa diiday sooma quraanku waa diiday in nabi ciise la dilay lama dilin laakiin khuraafadii rumaysiin baa waxa kamid nabi ciise in la dilay marka macatabkani qaarkood waxay leeyihiin nabi ciise ka horba intaan la dilinba ayaa kelimada macatabku ku soo aroortay anaajiisha oo waxa ku yimid bay leeyihiin kalimaad tilmaamaya macatabkuna nabi ciise say qabaan iyagu ay leeyihiin dilkiisii buu cabiraya macatabkaasi marka macnaha ay u qaadanayaan waxa weeyaan iyo saliibka u qaadanayaan al-istihana bil hayat wal isti'dad lil maut fi absha'i suratin yani waa nolosha inaad nolosha aad fududaysato oo aad geerida isu diyaariso suuro iyo qaab loo dhinto qaabka ugu liita inaad u dhimato oo adigoo lagu salbiyay oo lagu daldalay inaad dhimato inaad diyaar u tahay buu matalaya macatabku matalaya طيب fikradda macatabku waxay si xoogaysatay markii nabi ciise dilkiisa ay i'tiqaadiyeen oo waxay leeyihiin muxuu ahaayay dilkiisii qaabkii loo dilay bay ka turjumaysaa bay qabaan laakiin quraanka kariimkii waa inoo sheegay nabi ciise inaan la dilin waxyaalaha uu ku eedeeyna waxa kamida wa qawlihim inna qatalna al-masiiha ciisa ibn maryam rasuulallah waxyaalaha lacnadu ugu dhacday waxa kamida oraahda ay leeyihiin masiix baan dilay ciisihi ina maryamaha annaga dilay waa yahuuda rasuul ilaahi ah alla wuxuu yiri wama qataluhu wama salabuhu mana aynan dilin mana aynan salbin mayna daldalin walakin shubbiha lahum mid kale loogu ekeysiyay waxa ay dileen waa mid kale nabi ciise ma ahayn nabi ciise xagee la geeyay bar rafa'ahu allah ilayhi markay dilkiisa isku dayeen ilaahay baa kor u qaaday waaba la bixiyay walla samata bixiyay iyagu waxay moodayaan inay ciise dileen ma ahayn nabi ciise wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما كوا اسكو خلاف النبي عيسى دلكيسا أرنكيسا شكي بيكون دحجران من هيان علمي يقين ما هيان لكن شكي أي هيان ملا بإسكاد والراعين وإسكاد جوغان مويه يقين يهبال ما هيان alla wuxuu yidhi xaqiiqadii yaqiintuna waxay tahay inaysan dilin nabi ciise allah se kor u sii qaaday wa kaana allahu casiizan xakiima marka macatabkana kaniisadda reer yurub iyo dadkii kaniisadda la socday ka dhaadhicisay waa barnaamij isagana ka turjumahaya caqiide khariban ka turjumayo waxaa ka mid ah caqaa'idda ay dadka ku qasabtay kaniisaddu ee kacdoonka keenay waxa loo yaqaano caqiidatu alkhati'a almawruutha عقيدة الخطيئة الموروثة وحي كوضا وحي ليه نبي آدم صحابين ما هي
waa kii geeddaa ha cunin la yidhi jannada intii kale loo fasaxo loo oggolaaday laakiin hal geed la yidhi iska ilaali waa kii shayddaanku khalday oo geedkii cunay soo ma waa kii khaladkaas sababtiisa jannada looga soo saaray intaasoo qur-aanku uma sheegin marka waxay leeyihiin khaladkii aadam galay oo uu carruurtiisa ka galay alla ma saamixin dembigaa waa laynoo haystay carruurtiisii ka dambaysoo dhan dembigaasi waa taagnaa nebi ciisaa la keenay wiil ilaahay buu ahaa waxaana loo keenay in dembigaas laynaga saamaxo saas daraaddeed ruux ilaah baa ku jirtay ruuxdii iyo jidhkii basharkaa kala baxay waxa dhiiggiisa loo daadiyeyna waxay ahayd dhiiggiisaas in laynagaga cafiyo dembigii aabbaheen galay oo weligii ina saarnaa dembigii aadam galay ayaa waxaa laynagaga saamaxay waasay leeyihiin dhiiggii nebi ciisaa laynagaga saamaxay intii kalena waa ina saarnaa halkaasaa marka waxay faafinayaan khuraafo dhahaysa ma rabtaa in lagu saamaxoon dembigii lagu qabsanin haa iyo kuwo kale kaale ciise raac marka waxaa la yidhahdaa taana caqiidatu alkhatii'a almawruuha ayadana qur-aanku waa diidayo nebi ciise markuu khaladka waxaan u jeedaa nebi aadam markuu khaladka galay qur-aanku muxuu inoo sheegay ya inuu toobad keenay ilaahayna toobaddii ka aqbalay soo saas maa fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh ilaahay baa ka toobad aqbalay markiiba dembigiisii waa la saamaxay maxay tahay marka dembiga lala sugahayo ilaa nebi ciise intuu ka imaanahayo dhiig u daadinahay maxay tahay dhiigga nebi ciise dembiga ku xidhan muxuu waa talabaade soo qur-aanka mabduu qarriray ma aha walaa taziru waasiratun wisra ukhra yani dembi cidi gashay cid kale xambaari mayso aabbahaa dembigu galay hooyadaa dembigay gashay maadaa lagu qabsanaa cadaaladba ma ahaba cadaaladdu waxa weeyaan in ruux walba wixiisa loo qabsado annaga nebi aadam wuxuu galay maxaa dusha naga saaray marka maxaa kalifay in la yidhaahdo ciise dhiiggiisaa lagu saamaxaya waa khuraafo ay iyagu keeneen wadaaddadaa keenay wax salle maaha waxaasay marka khuraafaadkaasay dadka ku haysteen intaasoo dhan marka waa khaladaadka diineed ama tuqyaankii xadgudubka diineed ee kiniisaddu ay ku haysay reer galbeedka khaasatan ee quruuntii dhexe waxaa ka mida maalan wax loo yaqaano sukuku lghufraan sukuku lghufraanka waxaa la yidhaahdaa waa waraaq dembi markaad gasho midku dooni ha noqo noocu dooni dembigaas ha noqo waa inaad u timaaddo wadaadka kiniisadda waa inuu isagu kuu saxiixo in lagu dembi dhaafay ya wax dil soo sinayso wax kharib ya wax dhac tuugayso waxaad doontaad soo samaysa hadhow wadaadka kiniisadda u imo waxaad tidhahda sheekh inta khaladaadkaasaa jire bal ha lay dembi dhaaf waxoogaa keen baa lagu dhihi marka ya qaalin bixiye qiil ma waayo soo ma waxoogaa keen waxoogaagii buu dhiibahayaa wadaadkii waraaq buu u saxiixayaa saki buu u samaynayaa uu leeyahay dembigaagiioo dhan waa la dhaafay bal hadda kadib uun isilaali ninkii waa tegayaa haddana wixiisuu soo qasanahayaa xoogaa markuu soo noolaada haddana waa ku soo noqonaya wadaadkii wuxuu bal haddana ha lai dhaafo xoogaagaa dhig baa la leeyahy waa laguu dhaafaa haddana la leeyahy waxaa la dhihi jiray sukukul khufraan baa le wadaaddadaa samaysa war ma wadaad baa dembi dhaafay ya ma wadaad baa dembi kuu dhaafi kara waxaasay kiniisaddu dadkii ku qabsatay markaas haddana waxay tidhi car yaa khilaafi kara car yaa war kale la imaan kara war baashu khatarsana xaggaa waa duqyaankii iyo xadgudubkii kiniisaddu ay ka gashay xagga diinta dhanka dhaqaalaha marka la yidhaahdo ayadana xadgudub fara badan bay ka gashay xoolihii waddanka iyo dalka iyo dadkuba kiniisaddaa qabsatay maxaa amlaak iqtaaciya ah maxaa dhulal ah maxay awqaaf haysataa maxay muxuu ahaayey dadka ay ka qaaddaa waxa loo yaqaano canshuur dadka kiniisadda raacsan ruux kasta waa inuu canshuur bixiyo ya ruuxii aan canshuurtaa bixinin kiniisadda ma soo gela ya
hadhow haddaad dhibatana kaniisaddu ku aasi mayso waa inaad bixiso member tahay waa inaad xubin tahay canshuurtaana bixiso waa sanad walba haddana waxaa jira canshuur gooniyaa jirta hadaayaadkii iyo hibadii iyo wixii dadku keenayeen kaniisaddu ay u keenayeen ka sii daran kaniisaddii iyo wadaadadeedii milyaneer bay noqdeen wax alla wixii xoolo ummaddu lahayd ee dalku lahaa ayagaa urursaday talabaad bay waxaa taa ka sii daran ayadoo kaniisaddu milyaneer ah oo waddanka iyo xoolahaba leh bay haddana dadkii raacsanaa waxay rabtaa inay bilaash ugu shaqeeyaan kaniisadda bilaash ku dhis qabriga bilaash ku qod muxuu ahaay wax kasta bilaash ku qabo war xoolahan maad mishaar naga siisaan maya mishaar laguma siinayo waa inaad kaniisadda u sakhirnaato xoolahan yaa iskale wadaadada kaniisadda iyagaa cunaya oo de bini aadamku adigu inaad xoolo ka buuxdo allaana isoo diray oon meesha u joogaa wakiilka ahay tidhaah wax alla wixii khayraad waddanka yaallay oo dhan xagga gadaal iska mariso ayagana aad ka dhigato wax kuu wada adeega ma saasay kugu raacsanaanaya weligood kuu joogaya soo dadku kacdoon samayn maayaan dadku kuu joogi maayaan wadaadadii kaniisaddu halkaasay gaadheen yani dadkii cuqdad baa marka gashay oo ciil baa galay oo dadkii waa gaajaysan yihin oo waa rafaadsan yihin oo faraj iyo waxay u baahan yihin makhraj waxaan ka saaray sugayaan waxaan waa culays bay ku noqotay ya sidii la sheegi jiray soomaalidu waagii hore wadaadada wayna u loogi jireen haddana way dacaayadayn jireen maaha iyo haddaad aragto wadaadada ku baxay inta badan uun hunguri iyo raashiinu bay ku saabsan yihin war wadaadada ama raashinka ka daaya ama dacaayadda ka daaya waxay ku leeyihin wadaadkii markii loo sameeyey raashinkii loo sameeyey baa wax kasta oo raashinkii la kariya xaggiisaa la mariyey wadaadka u geeya kuruska u geeya muxuu baruurta u geeya hilibka u geeya bariiska wixii oo dhan xaggiisaa la mariyey nin baa meeshan fadhiya oo xanaaq ciil buu la dhimanay waana gaajaysay mana hadli karo hadhowaa mas ordahayaa meesha soo maray intuu qabtay buu yidhi tanna dhanka sheekha dee kanna dhanka sheekha dadkan marka waa gaajaysay waa rafaadsan yihin adiga haddaa ilaah baa ay soo dirayda ku hayso dadkiina aad cunaha hayso ma ilaahay baa ay soo diray kaa siisanaya ya maskana xagga sheekhaa dhici doonta marka maskana dhanka sheekha kaniisaddii dhibkaasay dadkii ku qabatay waxaa ka mid ah xadgudubka kaniisaddu ay samaysay ee kacdoonkan keenay waxa loo yaqaano adduqyaanu siyaasi dhanka siyaasiya awoodda siyaasadeed ayay kaniisaddu gacanta ku haysay ragga waddamada gacanta madaxda ka ah yurub nin siyaasad iyo madax qabtaay waa inuu wadaadka kaniisaddu uu taajka u saaro markuu rabana waa inuu taajka uu kala baxo bimacnaa markuu doonana wuu casili markuu doonana wuu saari kuraastuna saasay nin la dhihi jiray miaal ahaan maalan nin la dhihi jiray jerejori ama gregori la yidhaahdo baabbaha kaniisaddu ah imberator la dhihi jiray henry la dhihi jiray oo almaani ah jarmalka ayaa markuu kursiga qabsaday buu wadaadkii kaniisaddu dabcay inuu amarkiisaba diidaba wanaadkii kaniisadda marka dadkii raacsanaa imberatorka iyo madaxdii hoose buu ku kiciyey iyagii baa waxaa lagu yidhi kaniisaddu waa idin lacnadi ilaahay lacnadiisana waa idinku dhicin iyo baabbaha lacnadiisuba haddaad ninkaa tuuri weydaan madaxdii hoose oo dhan baa isu timid imberatorkii baa loo yimid oo waxaa la yidhi adeer laba mid dooro in lagu tuuro iyo inaad baabbaha u tagto cafi soo weydiisato baabbuhu marka arle ilaahay buu jiraa dhul kaloo fog buu jiraa ninkii imberatorkaa markuu arkay kursigiisii inuu khatar ku jiro ayuu markaa wuxuu ku qasbanaaday inuu jid dheer maro oo dhul buureemley a maro oo baraf jiiro oo uu wadaadkii kaniisadda ugu taga meeshiisii markuu tegey waxay dhacday baa la leeyahay taariikhdu markay ahayd taariikhda milaadigii markay ahayd taqriiban waa muddo hadda laga joogo
muxuu ahay 1000 sano iyo ziyaado laga joogo ayib markuu u tagay wadaadkii kaniisadda oo uu ka rabo inuu cafiyo kursigii ku soo celiyo ayuu wadaadkii kaniisaddu uu ismoogaysiiyey ninkanina waa rafaadsan yahay buuraley buu soo maray baraf buu soo jiiray baraf baa dhacaya iriddiisuu joogaa waa ismoogaysiiyey lamaba hadlinba in waa lagu qab jabinayaa sooma raganimadaada lagu ciyaaraya waxoogaagaad ismooday baa la doonayaa in laga jafjafo waxaa la rabaa nin dambe inuusan baabkaa furin waa u aamusay shib buu u yidhi ninkii barafkii ha ku dhaco ha gaajaysnaado dhar quman ma qabo waa kabala'yahay madaxu waa qaawan yahay ul yaroo bakoorada buu wataayoo waa rafaadsan yahay siduu meeshii u fadhiyey markuu malaha dhowr bari fadhiyey yaa markii dambe waxaa la yidhi waa lagu cafiyey kac kursiga ay ku noqo miaal maxay u tahay marka awoodda siyaasadeed kaniisadday gacanteeda ku jirta wadaadka kaniisaddu ninuuna kursiga saarin ma fuuli karin soo ma jeed ninkii iswaalwaalana wuu ka tuuraya halkaa maxaa inooga soo baxay marka waxaa inooga soo baxay kaniisaddii iyo wadaadadeedii oo reer yurub addoonsatay maskaxdoodii iyo cilmigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasaddoodii addoonsatay halkaa markay joogto sababta labaad waata marka sababi waxay ahayd calmaaniyada maxaa dhaliyey baynu ka hadlaynay sooma reer galbeedka dhexdiisa dhaliyey kow waa xadgudubkii wadaadadii kaniisaddu ay sameeyeen oo dhinac walba lahay qodobka labaadee dhaliyey waxa weeyaan iyadana xilligaa qurunta dhexe darsigeennii mustashriqiinta waxaynu ku soo sheegnay qurunta dhexe in reer yurubku ay u furmeen caalamulislaami soo maynaan soo sheegin oo ardadoodii timid oy jaamacadihii dhigteen oo culimmadii muslimiinta wax ka dhegaysteen culumtii falagga culumtii caafimaadka culumtii handasada injineerinka culumta noocyadeedii kala gedisnaa bay caalamulislaami ka qaateen way noqdeen culumtii bay turjumeen oo luqadahoodii ku turjumeen halkaa waxaa ka bilaabatay waxa loo yaqaano althawra alcilmiya alurubiya kacdoonkii aqoonta ee reer yurub halkaasuu ka bilowday dadkii wax soo bartay baa waxay soo barteen inay dhaqangeliyaan hormariyaan bay bilaabeen marka halkaasaa waxaa ka bilaabatay waxa loo yaqaano althawra alcilmiya aqoontii culumtii falagga caafimaadka handasada culumtan hadda reer galbeedku ay ku taamayaan wakhtigaasaa buduurteeda muslimiinta laga keenay asuusheeda marka la yidhaahdo muslimiinta laga keenay ayib waxaa bilaabatay marka raggii culimmada ahaa aqoon-yahanka ahaa ee keenay kaniisaddu waxay sheegaysay wax ka gedisa culum ayna kaniisaddu aqooninoo caafimaadka ku saabsan bay keeneen culum ayna kaniisaddu hayninoo injineerinka ku saabsan bay keeneen culum ayna wadaadadu kaniisaddu aqooninoo culumta falagga ku saabsan bay keeneen wadaadadii aqoon-yahankii keenay warkaa bay kaniisaddii la dagaalantay marka qodobka labaadi marka waxa weeyaan wuquufu lkaniisati ضد العلم وهيمنتها على الفكر markii cilmigaasi soo kordhay kaniisadii way hor istaagtay marka ruux wax sheegi kara ama cilmi soo kordhin kara ama waxba ii baxay dhihi kara ma jiro waxay furtay waxa loo yaqaano maxaakimu taftiish waxa weeye maxkamada khaas oo loogu talagalay nin kasta oo sheega wax ka gedisan aqoontii kaniisadda aqoonta wadaadada kaniisadda wax ka gedisan nin kasta oo sheega waa in maxkamadaha la geliyo waa in la jir dilo waa in la laayo waa in la baabi'iyo waa in la breshar gareeyo warkaasay kaniisaddii samaysay war maxaa diidantii nin kasta oo fikrad noocaasa la yimidna waxay ku tuhmeen waxa la yidhahdo alhartaqa hartaqada waxa la yidhahdaan tacaaliimtii kaniisaddaad khilaaftay halkaasaa marka isku dhici ugu horreeyey ka yimid yaa isku dhacaya wadaadadii kaniisadda oo waxoogaagoodii ay yaqaaneen diidan wax ka gedisan in la keeno iyo aqoon-yahankii reer yurub oo caalamulislaami intay wax ka soo barteen wixii kaniisadda wax ka gedisan doonaya inay keenaan halkaasaa dagaalku ka bilowday waxay sheegaan
raggii xilligaasi keenay afkaarta keenay waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray copernicus baa la dhihi jiray copernicus wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo thawaabit alajwaa alsamaawiya waana ninkii keenay waxa la yidhaahdo ama cilmiga loo yaqaano cilmulfalaga xarakaat alajraam alsamaawiya yani makhluuqaadkan waaweyn inaga koreeya xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa iyo dhulkaba inay socdaan oyna taagnayn waa ninka keenay aragtida dhahaysa qoraxda ayaa markaska lagu wareegayaa markaska ajraamtan samaawiga iyo kuwan kaleba ay ku wareegayaan waa qoraxda kullina way wada socdaan buu keenay caalim falakiya buu ahaa oo riyaad iyo faylasuuf ah culumta qaanuunka iyo caafimaadka iyo idaaradana wuu ahaa diblomaasina waa ahaa dhalashadiisuna asal ahaan wuxuu ahaan jiray Polandiyan buu ahaa asalkiisu Polandiyan buu ahaa markuu keenay aqoonta iyadoo culumta falaga uu keenay asalkeeduna muslimiinta ka soo jeeda ayaa marka kaniisadii waxay bilowday in ay tiraahdo kitaabkaas lama akhrisan karo kitaabka nooca sheegay waa gaalnimo wadaadkiisina waa laga xarimay dadkiina waa laga xarimay waxa kamid ah raggii xilliga iyaguna wax iqtiraacay nin la dhihi jiray isagana Giordano baa la dhihi jiray waa ninkii isagana ugu horeeyay kana wax la yiraahdo telescope-ka isagana ninkii ugu horeeyay iqtiraacay buu ahaa waa xilliyada asagana markuu warka keenay wadaadadii kaniisadu intay qabteen oo cadaabeen oo ciqoobeen ay aad u jirdileen asagoo waliba 70 jir ah uu markii dambe dhintay علشان معاد waxaan naqaanay waxa ka gidsan u keenaysaa waxa kamida mesela ragaasi Sabinoza nin la dhihi jiray oo wuxuu leeyahay wax la yiraahdo madrasatu naqdi taariikhi kaniisadda wixii la soo maray buu wax ka sheegay waxa kamida John Locke nin la dhihi jiray oo yiri waxiga xagga alle ka yimid kaniisaddu sheeganayso waa in aqliga lagu miisaamo wixii aqligu ay diido ma jiro wixii aqligu saxana waa sax raggaas oo dhan markay waxyaalaha kaniya kuwa kale kaniisadii dagaal bay gashay nimankii wax la dilo fikradoodii dagaalkoodii ma dhamaanin kuwa cusub ah ku soo biiray aqoontii baa sii socotay kii la dilo mid baa ka dambeeya siraac iyo looltan iyo dagaal adag baa wuxuu dhex maray kaniisadda wadaadadeedii iyo raggii aqoonta xambaarsanaa oo lala dagaalamay oo leeyahay waxaad wadaan waa gaalnimo iyo kaniisadda warkeedii uu khilaafsan arintaasi waxay socotaba akhiiran waxay ku dambeysay in kaniisadii laga adkaaday iyo wadaadadeedii kaniisadii wadaadadeedii waa laga adkaaday see looga adkaaday kacdoon shacbiya lagu kiciyay mujtamacii xanaaqsanaa ee gaajaysnaa ee rafaadsanaa ee maska u tuurahayay dhanka wadaadada kaniisadda yaa jaanis helay khalaas kacdoon baa marka dhacay wadaadadii kaniisadda marka waa laga adkaaday waxa markaa kacay waxa loo yaqaano athawra alfaransiya kacdoonkii faransiiska ama loo yaqaano kacdoonkii warshadaha yani ilbaxnimada reer galbeedku markaasay bilowday inay ka xorowdo kaniisadda ka xorowdo siraaca kaniisadda marka dhaqdhaqaaqa cilmiga dhex maray ayaa waxa ka dhalatay xukuumaddii ugu horeysay oo reer galbeedka ka istaagta oo calmaaniye ah waana alxukuuma alfaransiya waxay istaagtay 1789 waa qarnigii 18aad aakhirkiisii ayay dhalatay xukuumaddii ugu horeysay oo kaniisadii lu ku lahayd oo calmaaniye ah oo aad diin shaqo ku lahayd xukuumaddii faransiiska awwal xukuuma la diiniya tahkumu bismi shacbi wixii shacabkaasu rabo baan wax ku xukumayna shacabkaasu dadku doorto baa ummadda u talinaysa diin Soomaa wadaadka diineedow adeerow meeshaada joog wixii ku yimaada qaaraanka ka qaado wixii ku yimaada qaaraanka qaado laakiin hawsha soo faragelin in la waa la lagday Soomaa waa la lagday waa laga adkaaday halkaas marka ayay ka timid waxa loo yaqaano intisaar التيار العلماني على الكنيسة ورجالها ساسا لوغا أتكاذي ودادي كنيسة halkaasayna ka bilaabatay colaada la dhexdhigay diinta iyo cilmiga bal baa marka ya colaada abuuray
ya wadaadadii kaniisadda ayib su-aal baa isweydiinla marka halkaa waxaad isweydiin kartaa waana dib baynu kaga hadli doonaa intaa kaniisaddu samaysay diinta islaamka si loogu kaco iyada lafteeda dadka ma ku haysaa ya wadaadada haa wadaadada diinta islaamka xambaarsan intii kaniisaddu ku haysay reer yurub ee laga xoreeyey wadaadada diinta islaamku xambaarsan ma ku hayaan dadka diinta islaamku ma ku haysaa caqiide khariban oon la fahmi karinoo saddex ilaaha miyay diinta islaamku inoo keentay ma xoolaheenni bay uruursatay oo masaajidda meel u dhigtay ma awood waxaa jirta diintu intay haysato wadaadka diineed ninkuu doonana uu kursiga saarahayo ninkuu doonana uu ka dejinayo ma dhul iyo xoolo idinka qaadatay waa kuma masaajiddii wada baahan oo gaajaysanay ya maxaa keenay marka caqliyadda dhahaysa bal inay mucaadaladu khaldantaan idiin sheegaya nimankan calmaaniyiinta islaamka sheegtana inay wareersan yihiin baan idiin sheegay dabeecaddii halkaa ka jirta wixii ka dhashay bay intay soo qaadeen baa waxay rabaan meeshii meel aan ahayn inay u isticmaalaan diinta islaamku cilmiga iyo aqoonta miyay soo dhowaysay mise way la dagaalantay ya way soo dhowaysay aqoonta culuumta maadiga adduunyada diinta islaamku way furtay way amartay bal waxay ka dhigtay min furuud alkifaayaat waajibaadkay ku dartay ninkii caalim ah oo aqoon soo kordhiya manaafacaad lana diintu abaalgud inay siisa mooye weligeed ma cadaadin taariikhdaa dheer ee muslimiintu leeyihiin ayib dabeecadda marka keentay diin iyo waxaa hardamaya cilmigii wadaadadii cilmiga diintii wadaadadii kaniisadda iyo aqoon-yahankiibaa ishaya waa dabeecad reer galbeed iyo kaniisad ka timide muslimiintu taariikhdoodii ma lahayn warkaasi waa warka la doonayo inaynu dabeecadiisa fahanno oo nin kale reer galbeed aynu dabagallo oo maxaan ku dabagallaa diinteenna aan naqdinno sidii kaniisadda loo naqtiyey oo diinteenna iyo tii kaniisaddu ma isku midba wadaadkii kaniisadda iyo wadaadka diinta islaamku ma isku midba isku mid maaha waxay say qiyaas qaadanayaan calmaaniyiintu waa niman wareersan xaltaa falsafadooda asalkay ku salaysantaha baa wuxuu yahay asalan saxsanayn qiyaaska meeshay u kala qaadanaya qiyaas maca alfaariq waa sax wey reer galbeedku shalay say uga faa'iidaysteen diinta islaamka iyo culimmadii muslimiintu aqoontay gaadheen ee adduunyada ku saabsanay bay maantana mar labaad inay ka faa'idaystaan rabaan mar labaad bay u baahan yihiin aniga waxaan ka qayb galay hadda ka hor bilmithaal magaalada manama u ah caasimadda u ah baxrayn baan hadda ka hor waxaan kaga qayb galay mu'tamar weyn oo ay qabsadeen ama loo qabtay bunuugta islaamiga bunuugta islaamiga mu'tamarka loo qabtay ama multaqaha loo qabtay ayoofi niman la yidhahdaa qabtay maase weynoo ku taalla baxrayn ku taalla waxaa lagu martiqaaday waa xilligii reer yurub dhaqaalahoodu dumayey waay caalamkuna dhibaatada badan ay ka jirtay rag badan oo mutacalimiin ah oo reer galbeed ah mutakhasisiin ah oo bunuugta madaxdoodii saraakiisheediiya baa lagu martiqaaday waxay dhegaysanayaan marka islaamku aragtidiisa dhaqaale bunuugta islaamigiisay u salaysan yihiin maxay kaga gedisan yihiin bangiyada ribada ee taqliidiga reer galbeed ka soo jeeda iyo reer barigaba macluumaad bay marka qaadanayaan waxaa la yaab lahaa markay multaqihii si fiican u dhegaysteen wixii ka dhacayay xiwaarkiisii iyo doodiisii nin raggii wax jeedinaya ka mid ah wuxuu yidhi shalay haddaad tihiin reer galbeedka culuumtannadii baad xaddeen oo shaabaddeedii aad ka tirtirteen laakiin maanta inaad culuumtannada aad xaddaan ma suuroobaysee bunuugta islaamiga iyo qaabkay u shaqayso islaamkay salka ku haysaa ayadoo calaamadeedii wadata islaamnimada iyo shaabadeedii qaatoo ka faa'iidaysa laakiin sumadda inaad ka tirtirtaan oo darada annagaa keennay ood ku darsataan yani kuwiinna ku darsataan shalay haddaan jiifnay maanta waan soo jeednaa baa lagu yidhi
soo jeed marka xagga ma xataa aqeedada iyo cibaadada iyo ruuxdoodan oo man kaliya meehe shuruucda islaamka u baahan yihiin haddadan la joogo ayuu u baahan yihiin طيب آذانك مرمرين فضل شيخ آذان